wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Axmed Cabdi Kaahin agaasimaha guud ee wasaaradda Maxamed Xuseen Dhabeeye agaasimaha waaxda ciyaaraha wasaaraddaasi barasabka gobolka Togdheer Xildhibaan Mubaarak Cilmi Bidhi ayaa kormeer ku soo maray garoomada cagaaran ee rooga ah ee magaalada Burco waxaana kormeerkan wasiirka iyo wafdigiisu ku dhiirigelinayeen dhalinyarada ciyaaraha isagoo ilaa 4 garoon oo ciyaaro ka socdaan gaadhay isla markaasina qaarkood kula ciyaaray dhalinyaradii ku ciyaaraysay waxaana wasiirku ugu bishaaraya bulshooyinka ku dhaqan gobolka Togdheer in mar kale lagu qaban doono koobka gobolada Somaliland gobolka Togdheer maadaama uu yiri reer Burco martigelinta ku wacan yihiin reer Burco waa dawladdu aad bay idin shaqaynaysaa oo maxaan ku raahdaa garoonkana in sanadka dambe la idin dhigo roog waa suurtagal idinkana waxa la idin rabaa in dadaal badan sameysaan waxa la idin soo noqnoqonaya waxa weeye waa dhalinyarada reer Burco in magaranaysa ay ka soo baxaan kooxo adduunka ugu taga ciyaaraha taga garoomadiina Burco inay si badanayaan waan arkayaa ciyaaraha ka socdo waan arkayaa xalay markaan hoydo waan maqlayaa ciyaaraha waxaan maleynayaa inay ka baxeen wixii lagu sheegi jiray inay maanta nadiif ka yihiin labaad waxaan idin sheegayaa ciyaarihii sida uu agaasimuhu sheegay halkoodna lagu qabanayaa waxa loola soo eegtayna waa soo dhaweynta reer Burco agaasimaha guud ee wasaaradda barasabka gobolka Togdheer Xildhibaan Bidhi Xildhibaan Cabdilaki iyo waliba xubno kamid ah mulkiilayaasha garoomada uu kormeerku wasiirku ku maray ayaa halkaasi ka hadlay waxaana yiraahdeen waxa way doog la dhigay ee dadka ay gaarka u sameeyeen waxay runtii farxad weyn u tahay dadka reer Somaliland oo dhan haday tahay waxa way ciyaaraha dadka ku shaqaleeya haday tahay dadka kale caadigaaba way ciyaaruhu waxa way waxaan doonaynaa in ku bedelo waxyaalo badan oo maanta wadankeena mushkilad ku ah waxaan doonaynaa in qaybsanaanta dhalinyaradeena ku midayno waxaan doonaynaa in kaga saaro dhibaatooyinka haday tahay balwadaha haday tahay tahriibka haday tahay suxuun fikirka waa adduunyada oo dhan waxa loo ciyaarayo loo dhiirigelinayo lacagta loogu bixinayo wax kala ma aha waa in wax way dhibaatada laga saaro midabka dadka kala duwan baa lagu mideeyaa dadka kala afkaarta diimahoodu kala duwan yihiin midabkoodu kala duwan yahay inagoo dad quro wadan wada leh waxaan doonaynaa in dadkeena midayno waxay ka qayb qaadan doontaa isdhexgalka bulshada ay door ku yeelan doontaa waxa ay door ku yeelan doontaa muxuu ahaa dhalinyartii meelahan gidaarada istaagi lahayd ee dadka boobi lahayd ee dhibaatada geysan lahayd ee tahriibi lahayd ayay door weyn ka qaadanaysaa muxuu ahaa ciyaarahani waan idinku boorinayaa laynagu yaqaanaa daatiin reer Burco inaynu soo dhaweyno martida inaynu sidii laynooga bartay markii hore koobkii aynu martigelinay waxaan idin soo jeednaa reer Burco 7 gobol 7 gobol ee inoo iman doona ciyaaraha inoo socon doona inay nala soo dhaweysaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay caawa garoomada horumar ka socday ay soo maraan ay soo kormeeraan mudane wasiir waxaan kugu soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo gacmo furan adigay waftigaaguba Burcana intii imika kubadii berigooda ka jeesatay laakiin intii garoomada la furay waxaa soo galay dhiirigelin weyn tahriibta qudheedu way naga yaraatay dhalinyartii hore cuslaato dhan baa imika kubadii ku soo wadnay kalsooni iyo yididiilayna gelinaysa in madaxda gobolka ay naga warhayso oo ay nagu soo boqdaan halkan anaga iyo dhalinyartii oo ku ciyaaraysa oo wasiirkii uu ugu horeeyo waanu midin ka mahadnaqaynaa soo imaatinkiina iyo wafdida ballaaran soo aad baan ugu mahadsantihiin waxaad lagu farxaa dhalinyaro badan oo meelay tagaan aan garanayn oo haday tahriib noqon lahayd haday shaqalaan noqon lahayd intii ay u noqotay amal inay kubadda ku ciyaaraan jirkooda ku dhismo horumar gaaraan وبروقاد المحمد شبكة عالمية ودوين النيوز مقالة برعو